guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Waxaa jira wax aad qaali u ah markaad aragto cunug yar oo jiifa. Aad ay u qurux badan yihiin, way aaminsan yihiin oo way xasilan yihiin. Waxaa nasiib darro ah in sanad kasta ay jiraan carruur kumanaan gaaraya oo si lama filaan ah geeriyooda intay hurdaan. Tan waxaa loogu yeeraa SIDS, calaamadda geerida degdega ee dhallaanka. Inkastoo khabiirada aysan si sax ah u hubin waxa sababa SIDS, waxay ogyihiin gacanta ay waalidiinta ay ka geysan karaan si dhallaankooda ay ugu ilaaliyaan oo ayna hoos u dhigaan halista SIDS, iyagoo raacaya sababaha soo socda ee dhinaca jiifka. Tabta ugu muhiimsan ee ammaanka hurdada waa ilmaha sibyaanka dhabar loo seexiyo ilaa ay ka gaarayaan 1 sano jir. Tan iyo ilaa marka akadeemiyada daaweynta carruurta ay ka soo jeediyeen talooyinkan sanadkii 1992, xeerka SIDS waxaa hoos loo dhigay ilaa nus. Tabta ammaanka ee labaad ayaa ah in la hubiyo in carruurta aadka u yar sariirtooda ku seexdaan. Carruurta aadka u yar waa inay seexdaan qolka waalidiintooda, laakiin marnaba ma aha inay isla sariir seexdaan qof weyn ama carruur kale. Carruurta aadka u yar sariirta waalidiintooda waa la soo saari karaa goorta la naas-nuujinayo ama si loogu nasiyo, laakiin waa in lagu celiyaa sariirtooda ama meesha ay ku seexdaan goorta waalidiinta ay diyaarka u yihiin inay seexdaan. Tabta ammaanka ee saddexaad ayaa ah in la hubiyo in carruurta aadka u yar ay ku seexdaan bay'ad ammaan ah. Sariirtiisa waa in kaliya ay la ahaataa joodari adag iyo go' sariirta ku dheggan. Ha u saarin kubeerto ama bustayaal, boombalo, barkin ama barkinada dhinacyada la dhigto. Dhallaanka marnaba ma aha in lagu seexiyo barkin, boombalo, maqaar, salooto, kursi ama meelaha kale oo dabacsan. Tabta ammaanka ee afraad ayaa ah in la hubiyo in dhallaankaaga uusan aad u diiranayn inta uu hurdayo. Qolkaaga ha ahaado qol heerkulkiisu yahay mid istariix u ah qofka weyn ee xiran shaar gacmo gaab, oo ubadkaaga u geli dharka hurdada oo ku habboon. Marnaba ubadkaaga kubeertaha ku daboolin. Kubeertada inta uu soo jiido wejiga iska saari karo oo neefsashadiisa wax u dhimi karta, oo qofna ha u ogolaan in dhallaanka agtiisa sigaar ku cabo. Waxaa muhiim ah in qof kasta oo cunugaaga ku qabanaya uu dhallaanka dhabar u seexiyo. Goorta dhallaanka inta badan dhabar loo seexiyo, calooshooda lagu seexiyo, SIDS ayay aad halis ugu yihiin. Qaabka ugu wanaagsan ee aad uga ilaalin karto SIDS ayaa ah in carruurta ka yar 1 sano aad u seexiso dhabar oo sariirtooda aad ugu seexiso si ammaan ah oo si habboon u labisan. SIDS dhallaanku wuxuu ku dhici karaa waqti kasta inta ay ku jiraan sanadka ugu horreeya. Sidaa awgeed, raac tabahan ammaanka ah ilaa ay ubadkaagu ka gaarayo sanad guurida 1. Dhallaankaaga oo dhabar aad u seexiso waxay kaa caawin doontaa inuu ku noolaado nolol dheer oo caafimaad qab ah. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.